بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأبرار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا الله شرفت له إلهي سبحانه وتعالى سلامتيسا إسلامك الدعاء meel kasta aad joogtaan ayaan idinku salaamay. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh, oo micnaheeda ay tahay dushiin ha ahaato nabad iyo naxariista ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo barako. waa duco. intaas kadib waxaan rabaa walaalaha inaan xusuusiyo, nafteeda inaan xusuusiyo duco cajiib badan aan u baahannahay waqtiyada xaadirka hadda aan ducadan waxaa ka faa'iidaysanayo dadka ahlu salaah ee shanta waqti tukada ama sunnooyinka tukada. waxaan u baahannahay markii oo qof aad la hadlaysid oo telefoonka aad isticmaalayso, khadka hadduu furan yahay qofkaas waad la hadli kartaa, ku maqlaya. qadka hadduu xiran yahay qofkaasi lama hadli kartid, mana ku maqlayo. ducadan oo aan ka hadlayo qofkii akhrista abwaabu samaa, albaabada samaawaadka oo dhan ayaa loo wada furayaa si wuxuu rabo uu ilaahay uu u gaarsiiyo loona aqbalo. waxaana la akhristaa salaada markaad galaysid kadib. markaad akhrisato kadib oo abwaabu samaa lagu furo, ilaahay waxaad weydiisanaysaa wax alle waxaad rabto adoo salaada ku jira. haddaadan af carabi oo salaada af carabi waxaan ahayn lama ogola, haddaadan ku weydiisan karin waxaad niyadda ayaad ilaahay ka weydiisanaysaa, sababta ilaahay subxaana wa tacaala wuu ogyahay waxa niyadaada ku jiro. ducadan waa saxiix, xadiiska imaam muslim ayaa wariyey. xadiiska sidan ayuu dhahayaa: cabdullaahi ibni cumar radia allahu tacaala canhuma, isagii aabiis ila ka raali noqdo, ayaa wuxuu yiri baynamaa naxnu nusalli maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam, annagoo nebiga salaad id qaala rajulun, ninbaa wuxuu yiri salaadiisa markuu furfuranayay nebiga allahu akbar uu dhahay. nin ka mid a dadkii musalliinta wuxuu yiri oo qaala rajulun min alqawmi, ninkii wuxuu yidhi allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kahiira wa subxaana allahi bukratan wa asiila. intaas ayuu yiri. waa maxaa micnaheeda? allahu akbar kabiira, allahu akbar, ilaahay wax walba uu ka wen yahay. wax walboo awood sheeganayo, wax walboo maal sheeganayo, wax walboo wax insaan qiimo xaggiisa kale sheeganayo, ilaahay ayaa ka weyn. wuxuu ilaahay haystaa ka weyn. allahu akbar kabiira. intaas iyadoo koomicneed waa intaas. walxamdu lilahi kahiira, mahad ilaahay subxaana wa tacaala oo badan. nicmooyinka ilaahayna siiye oo dhan waxaad leedahay ilaahu adeeg kaa go'day, adeeg kaa soo go'day, adeeg kaa timid. waan rumaysnahay cid kale nicmooyinkan inayan bixin. ilaahu waad mahadsan tahay, saasaad leedahay. wa subxaana allahi bukratan wa asiila, wa subxaana allahi, ilaahay ayaa kaamil ah waay. wax ilaahay ka soo haro dhan waa nuqsaan, ma dhammaystirna. ilaahu adeeg keliyaa dhammaystiran. waxaan ku celcelinaya arrintaasi bukratan waa subaxdi gelinka hore, waa asiila waa casirka kadib ayaan ku celcelinayaa. saasaad leedahay. marka ninkii intaas uu dhahay, rasuulka markuu salaada ka baxay calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi man ilqaa'il
iyo kuma qofka ku hadlay kelimadaas kada wa kada yaa way qofka dhahay allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kathiira wasubxaana allahi bukratan waasiila. qaala rajulu min alqowm, nin dadkii ka mid ah wuxuu yidhi ana yaa rasuul allah, rasuulka ilaahu anaa dhahay. markaasaa nebiga wuxuu yidhi cajibtu waxaan la yaabay lahaa kelimaadkaasi aad ku hadashay futixat lahaa abwaabu samaa, albaabada sida loogu furfuray kelmadahaasi aad dhahday darteeda albaabada sida laguu furfuray ayaan la yaabuu yidhi. ibnu cumar oo xadiiskan weriye wuxuu yidhi famaa taraktuhunna, markaan maqlay ducadaasi oo rasuulka dhahayo qofkii akhriya samaawaadkaa loo furayaa oo wuxuu raba ilaahay subxaanahu wa tacaala ha weydiisto, kama tegin, ma aanan joojin uu yidhi mundu samictu rasuula allahi sala allahu alay wasalam, markii rasuulka calayh salatu wasalaam uu dhahay yaquulu dalika arrinkaasi. hadiyad waay nabiga calayh salatu wasalaam ayay ka timid. adna hadiyaddan markaad maqasho aad xifdiso, qof walba oo muslim ah oo walaalka iyo walaasha ah u gudbi caawa, ha seexan adoon gudbin, si lagu qoro ajirka iyo thawaabka ruux walba oo muslim ah oo aad gaarsiiso uu heli doono. waa mar kale waa fariin nebiga ka timid calayh salatu wasalaam. cabdullaahi ibni cumar oo ka mid ahaa culummadii asxaabta dhahay maalintaan maqlay salaad kasta aan tukado si albaabada samaawaadka lagu furo wax u weydiisto ilaahay, wallaahi kama tegin akhrinteeda ilaa markaan maqlay laga bilaabo ilaa nolosheeday ka dhammaatay. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa tawfiiq waaye inuu ilaahay ku xusuusiyo oo ilaahay uu ku waafajiyo. inta i dhagaysanaysa iyo inta la gaarsiiyo waxaan ilaahay weydiisanaynaa ilaahu tawfiiqdana waafiji. ducadan salaada markaan allahu akbar dhahno inaan ku xijino allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kathiira wasubxaana allahi bukratan waasiila, oo samaawaadka markuu ilaahay uu noo wada furo aan dhahno ilaahow muraadkeenna caam iyo khaas noo sahal, ilaahu inta naga xanuunsan caafimaad buuxa si, ilaahu inta caruur ah aan wada dhalnay meel kasta ay joogaan ilaahu baariyaal ka wada yeel, ilaahu subxaanahu wa tacaala dhib iyo culayskana haysto naga qaad, shar iyo fitan noocay doonto ha ahaato makhluuqaadkaaga ka imaanaya ilaahu naga hay. ilaahu subxaanahu wa tacaala wax alle waxaan ku weydiisanay oo adduun ah oo khayr ku jira ilaahuna wada si, wax alle wixii shar ah ama fitan ah oo makhluuqaadkaaga ay sabab u yihiin ay ka imaanayaan ilaahu naga xijaab, wax alle wixii khayr ah oo janno iyo rido ahaanshaha ilaahay ay ugu horeyso ilaahuna si. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.